ujeedada shirweyne waxaa weeye shirweyne aan caadi ahayn laakiin la isugu diyaarinayo marxalad cusub baan galnay heshiis baan galnay shirweyne kaa la isugu diyaarinayo oo ururka hawlihiisa lagu baarinayo ujeedada shirweyne waxaa weeye shirweyne aan caadi ahayn laakiin la isugu diyaarinayo marxalad cusub baan galnay heshiis baan galnay shirweyne kaa la isugu diyaarinayo oo ururka hawlihiisa lagu baarinayo dhammaan deegaanada oo halgan siyaasi ah la isugu diyaarinayo oo halgan si nabada loo halgamayo la isugu diyaarinayo shirweynaha ujeedadiisuna saa wey doorasho ma dhacaysaa ururka doorasho mar hore ugu dambeysay gaar ahaan madaxda ugu sarreysa dhowr iyo 10 sano xilka hayaan waxaa shirweynihii hore waa la soo doortay hogaaminta golaha dhexe guddiga fulinta gudoomiyaha dib baa loo doortay structureki waxbaa laga bedelay oo gudoomiye ku-xigeenkii waa la baabiiyey xogeeye guud baa la doortay mas-uul cusub baa noqday xubno cusub baa golaha dhexe soo galay xubno cusub baa guddiga fulinta soo galay hogaaminta guddoonka oo adigana aad ka mid tahay inaad ku raagteen xilka soo ma moodid dhowr iyo 10 sano idinku baa soo noqnoqonayay odayaalna waa tihiin etoobiyana dhiig cusub iyo marxalad cusub ay gashay marka gaar ahaan afartiina oday ee ururka ugu sarreysa adiga iyo jananka iyo maxamed ismaaciil iyo maadey soo kuma aadan raagin kuraasta waan ku raagnay laakiin annagu tawrad baan nahay tawrad gobonnimo doonaan nahay xisbi siyaasi oo dal nabada ka halgama ma ahayn xisbi magac iyo manfac lagu helo ma ahayn marka dad naftooda hurayaal lagu yeedho halgamayaal loogu yeedho oo iyagu dhaqaalahooda iyo dhiigooda iyo waktigooda huray ahaayeen ma ahayn xisbi siyaasi oo hoggaankiisu nin lagu maamuuso haya ma ahayn cabdiqaadir mooge isbeddel baa aad loo hadal hayaa ururka dhowr jeer aad shirtaan wax muuqdana ma beddeshaan raggii hore unbaa soo noqda mabaadiidii waxba kama beddeshaan shirkan goday aad hadda u fadhidaanna aad baa farta loogu fiiqayaa iyadoo weliba xilli isbeddel uu etoobiya ka jiro uu shirkan ku soo beegmay mabaadiida wax ma ka beddelaysaan oo magaca uu ugu horreeyo magacan Ogaden National Liberation Front istiraatiijiyad cusub aan qaadayna mabaadiidanada ku dhisan inaan dad Soomaaliyan nahay dad dulman nahay ay ka talin doonayno ismaamul doonayno xorriyad doonayno nolol doonayno jiritaan iyo identity iyo muuqasho ummadeed aanu doonayno kama tanaasulayno magaca ma ka tanaasulaysaan cadaani magacan Ogaden ma ka tanaasulaysaan استراتيجية يا مجا وحوية لأن شروينها أجود ولا تيجي سبب قالها ده حكام بدو شروينها يلا صهر لي فضف كستنا ولا سوى شيء كرا دور الشذنا ويدا حيث شروينها سماينية نول بو السريح كرا قدوميها يهجانك إن لبدلوا أما لا دورته قيب وكيه هي شركة هذا أوفر إذا نقدي وكم مديه واقرتي waxyaabaha kale lidinku eedeeya waxaa ka mid ah inaad xisbigii ku dhex milanteen xisbigii dimuqraadiga Soomaalida Ethiopia Somali Democratic Party oo baawurtiisii aad isticmaalaysaan oo guryihiisii aad degan tihiin marka taa maxaad uga jawaabaysaa waxaan uga jawaabaysaa annaga dawlad gobonnimo doon aan ahayn oo dadka Soomaalida wakiilka dawladda Ethiopia la diraynay heshiis baan la galay xafiisyaan ku leenahay gaadiid baan ku leenahay waxaan leenahay peace building process marka xisbi Addis Ababa jigjiga iska abaabulay oo booror la soo xaadiray manihi marka xal siyaasi iyo dhaqaale badan iyo gaadiid iyo dibadajin iyo power sharing bay xaq u leeyihiin xisbigaana kuma naan milanin halaki soo idinka isticmaalaya jigjiga waxaad degan tihiin guryihii dawladana dee xisbiga madax u ah xisbiga dimuqraadiga Soomaalida oo ah Somali Democratic Party baawurtiisii aad isticmaalaysiin hoolalkii shirarka yaad shirarkii ku qabsan haysaan marka xisbi idin quudiya oo aad hadda noloshiiniiba gacanta ku haya seed biri ula tartamaysaa wax suminu xisbi leeyahay maanaan isticmaalin hantidan shacabka Soomaaliyeed baa iskale Somali state baa iskale shacbiga Soomaalida ogaadeen iskale waa hantidayadii oo qaarkeed inta iskale Somali state baa iskale shacbiga Soomaalida ogaadeen iskale waa hantidayadii oo qaarkeed inteedii badneed naga maqan tahay xaq boqol jibaaran baan ku leenahay xisbigan caydha anagu 5 shilin oo kiisa maan muxuu ahay ma weydiisanayno mana u laha gaadiidka guryaha muxuu ahay dhaqaalaha iyo facilitieska ummadda Soomaaliyeed baa iska leh xisbigan muxuu ahay aad hadda carabaabayso
iskama laha martina uma nihin inuuna martiya mooyaane. aan u gudba su'aal kale cabdiqaadir hirmooge doorashada ma sidaad ku gelaysaan bisha May sanadka soo socota sida la qorsheynayo doorashada dalka ka dhacaysa ma wajiyadan intaasoo sana jabhadda madaxda u ahaa baad ku gelaysaan mise rag cusub iyo dhiig cusub aad soo wadaan rag cusub waan soo wadnaa dhiig cusub waan soo wadnaa halgamayaashii qaaliga ahaa ee shacabkan usoo halgamay ee usoo dagaalamay ee xuquuqdooda dhiig cusub iyo aqoon cusub iyo dhalinyaro iyo xoog cusubna waa imanayaan tawxiya shacabkeeda oo wada socdo oo 15 milyan ah doorashada geli oo qalbiga iyo maskaxdaba ka wada socda guushana waanu ku dhufanaynaa 7 iyo eber waa gartay shacabka maxaad u taqaanaan kuwa goday iyo qabri daahri iyo dhagax buur degan shacabka Soomaalida inta uu ka balaaran yahay way rafaadsan yihiin dhib baa hadda ku socda gobolka City canfar baa dadkii laynaysa sida la sheegayo dagaala ka socda degmooyin baa la qaatay ma tagtaan oo shacabka haduu idin siman yahay ma City iyo diri dhabiyo dhulka inta tagtaan oo shacabka mid idin noqdo waanu ka hadalnaa waan joognaa City xubno oo la faajooga kaadir oo la faajooga halgamayaal baa jooga aniga jooga ka howlgalayay qaar baa hadda ka soo ambaxay shir ka soo qayb galaya qaar baa arrimaha u jooga xalay baan riboodka qaadanayna cadeyntii iyo dhibaatooyin ka dhacay hawlo dawladda ismaamulka iskale deegaanka dhulka Soomaalida ee dalyo kale